Kani waa Mengistu Haile Mariam madaxweynihii hore ee dalka Itoobiya markii xukunka laga tuuray bishii May 21 sanadka markuu ahaa 1991 ayaa la weydiiyay ma ka xun tahay in xukunkii Itoobiya laga qaaday wuxuu ku jawaabay maya waayo waxaan dhaliyay ayuu yiri gool uusan dhalin madaxweyne iga horeeyay uusan dhalin doonin mid iga dambeeya waxaa lagu yiri maxaad ula jeedaa wuxuu yiri waxaan riday cadowgii ugu horeeyay ee ilaahid Itoobiya ka hor inta aanan xukunka laga tuurin cadowgaasi uu ku tilmaamay dawladii Soomaaliyeed markii Mengistu xukunka laga tuuray taladii Itoobiya waxa la wareegay Mele Zenawi isagana halkiisa ayuu ka sii waday cadaawada ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed markii uu geeriyooday Mele Zenawi Soomaaliya hooshii la xiriirtay waxa sii waday labadii nin ee Tigreega kala ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Tedros iyo General Gabre Itoobiya hogaamiyaashooda waxay ku faanayaan guulaha ay ka gaareen iyagoo bajiilka kale ku tarbiyanaya cadaawada ummadda Soomaaliyeed kani waa Abiy Ahmed hadda hogaamiya dalka Itoobiya waa Netanyahu cusub ee Afrika kaasoo raba dhulkeena hooyo inuu ka dhigo Falastiinta Afrika wuxuu leeyahay hamiga ay lahaayeen awiyashiisa mid ka weyn sida uu isaga yiri Soomaaliya Itoobiya iyo Djibouti Eritrea bal kabarama ayuu yiri hadii ay midoobaan waxay noqon karaan sida Chinaha Mareykanka iyo Ruushka wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay arintaasi waxay keenaysaa inaan noqono dal weyn Allah u naxariistay Dr. Umar Cismaan Rabi waxa uu yiri hadal aad u qiimo badan kuwa Itoobiya walaal ka dhigtay waxaysan garanaynin xabashada cadaawada ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed waxaysan garanaynin sida xabashada ay u gashay kuwii iyaga ka horeeyay ee dabadhilifyada u noqday shacab aan waxba ogeyn iyo siyaasiyiin ayaa waxay lahaayeen hadii badeena aan ka ijaarno waxaan ka helaynaa aqoonsi Itoobiya laakiin aqoonsiga muxuu ka yiri Radwan Hussein oo ah la taliyaha amniga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed saldhig iyo bad markaan helno kadib ayaan ka fikiraynaa ayuu yiri aqoonsiga Somaliland inaan aqoonsaniyo in kale Itoobiya waxay u baahan tahay geesinimadii ay lahaayeen awooyaasheena hadal waxaa jiray taariikhda gale oo uu yiri Sheekh Xasan Barsane Allah u naxariistay haddaad dhulkeena aad u timid inaad nala dagaalanto waxaan isku dayi doonaa intii karaankeena ah inaan dagaalanno fariintii loo diray gumaystii Talyaaniga waxaana diray Allah u naxariistay Sheekh Xasan Barsane fariintan waxay ka socotaa Sheekh Xasan Barsane waxayna ku socotaa gumaystaha dhulkeena waxa aan ku bilaabayaa magaca Allah waxaan helay warqadii waana fahmay hadalkaaga waxaan kuu sheegayaa inaan qaadanaynin amarkaaga dawladdaada waxay leedahay sharciyadeeda anagana waxaan raacnaa sharciga Allah iyo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam manihin sida ummadaha kale aad gumaysatiin iskuma dhiibno isticmaar mana doonayno in aan adduunkan sii joogno waxa aan doorbidnay in aan dhimano anagoo difaacayno diinteena iyo dhulkeena Sheekh Xasan Barsane wuxuu ahaa caalim diineed halgamaa hor istaagay isbalaarintii duulaankii Itoobiya iyo xukunkii gumaystaha Talyaaniga ee koonfurta Soomaaliya waa inaan noqonaa sida awooyaasheena hadalkeena waa inaan ku darnaa ficil Netanyahu Afrika Abiy Ahmed wuxuu qoray buug isaga sumcad loogu raadinayo buugan waxa uu ka koobnaa 274 bog waxaana lagu qoray 3 luqadood wuxuu noqonayaa buugii 8aad uu qoray Abiy Ahmed wuxuu yiri awooyaasheena taariikhdooda waa inaysan lumin lacagtii ka soo xarootaa buugan aan qoray dal iyo dibad waa in lagu dhisaa karmardha waliba wuxuu mas'uul uga dhigay lacagtaasi qof Soomaali ah awooyaasheena miyaa ka wanaagsan awooyaasha Amxaarada iyo Tigreega Itoobiya karmardha waxa si weyn loogu xusay jabkii ciidankii Soomaaliyeed 1977 laakiin ciidankaasi hal cadow ma jabinin ee waxa jabiyeen dawlado badan Itoobiya awoodeeda ay rabtaa inay dib u soo ceshato anagana waxaan ku mashquulsanahay reer hebel ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dagaalkii 1964 anagoo 4 sano xur ah ayay Itoobiya dagaal nagu soo qaaday waana ka adkaanay halgamaagii Axmed Guri Allah u naxariistay ayaa dagaal ku qaaday boqortooyadii Abyssinia wuxuuna u diiday inay dab shitaan wuxuuna ku qasbay inay hilibka ceeriinka cunaan 2006 Mele Zenawi ayaa isku dayay inuu dagaal ku qabsado Soomaaliya wixii ka raacay waan wada ognay 2024 lagama yaabay inuu Abiy Ahmed uu qabsado mid kamid ah badeena hadii aan ka adkaanay boqortooyadii Abyssinia 1536 sidoo kalena aan ka adkaanay boqortooyadii Haile Selassie 1977 oo aan ka sii adkaanay Mele Zenawi 2006 hadda waxaan ka adkaanaynaa Abiy Ahmed anagoo midaysan muuqaalkan halkan ayuu ku eegyahay waxaan ka cabsanayaa muuqaalkan inaad like garayso sidoo kalena aad u sii share garayso qof walba Soomaali ah